بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا جنالكينا قعم فران قلب السافية وإذن سو دوينا يا صومالي وين وان إذن سلامة ميلو بدجوكتان مالي ونكس. maanta mawduuceena waxaa ku saabsan yahay ama barnaamijkeena xanuunada bini'aadanka ku dhaco ool inay yihiin dareen waaye. markaan ku dhahayo waa dareen adiga aad dareentay oo cudur noqonayo soo nafta iyo jirka iyo ruuxa waxaa waaye wax isleh waa soo ma marka naftaada inaad ilaalisid waajib ay kugu tahay sababtay u tahay dareen waaye. xanuunada kugu dhacayo masalan haddaa murugootid oo kaleento in xanuuno ay kugu dhacayaan, haddaa aad u carootid oo kaleento in mararka qaar dadka aad arkaysid cara darteeda qofkii uu maxay jirkiisa qayb ka mid ah uu ku dhaco maxaa la dhahaa uu ku dhaco howlgab uu ku dhaco oo dhiigii uu maxay mararka qaar maskaxda uu ku shubo cara darteeda uu maxay tiisa ay imaato oo sababtiisa ay noqoto inuu ku baxo. nabiyullaahi yacquub calayhi salaam markii wiilkiisii nabiyullaahi yuusuf walaalihiisa maxay ay cadaaweysteen ay ku shubeen ay ku rideen ceelkii maxaa dhacay inuu indhaha beelay. indhaha muxuu u beelay murug darteeda. يعني مرugta waxaa waaye waxay keentaa cuduro badan ayay keentaa. ilaahayna quraankiisa uu ku leeyahay suuratul maryam markuu maryam u sheegay uu dhahay ha murugoon waaye. murugta waxaa waaye systemka jirkeena lagu leeyahay ayaa istardaraya subxaanallah cudurada meesha ka bilaabanaya. marka dadka aadka u murugooda dadka aadka u walwalka badan stresska badan ayaga dhan waxaa waaye ma degana cuduro way soo jiidanayaan, hubaal way soo jiidanayaan. xataa dumarka waxaa waaye gabdhaha markay weynaadaan oo kaleente waxaa doctorka wuxuu leeyahay jooji stresska jooji. gabdhaha oodka raadinayo kaleente waa aragtay waxaa leeyahay jooji walwalka jooji naftaada waxaa waaye samee deganaan nafsadeed helaa la leeyahay. marka cudur oo dhan waxaa waaye dareen adiga ka imaada waaye. marka see anaga ku noqon karnaa dad caafimaad qaba 100%. hubaal inay imaanayso horta marar aan xanuunsaneeno wax caadi ah waaye, laakiin haddana in badan nafteena inaan nabad ku noolaano waa awoodnaa inaan nabad aan ku noolaano maadaama cudurada ay badi ka imaadaan dareen anaga naga soo maaxdo. marka dareenkii waa inaan xakameynaa. dada waxay ku leeyihiin anaga dareenkeena ma xakameyn karno. sax mararka qaar waxaa jirto inaadan dareenkaaga xakameyn karin, bini aadanaa tahay. mararka qaar markaad aad u ciishootid oo kaleente waxaa imaanaya inaad ooysid. taasoo kale markaad ooysid ooyintii bay kaa soo baxday dareen aad u qurux badan waaye gudahaaga maku noqonin. waxaa daran in dareenkaagii adiga aad isku celisid oo gudahaagii aad ku caburtid. marka ha caburin naftaada. dareenka kaa soo baxaayo wax adiga gudahaaga ka imaanayo soo marka cabir. hadday tahay inaad ooysid oo aad ciishootay ooy wax caadi ah waay. soo dareenkaagii waa maha wax adi aa matalaysa oo daraame ma caadi waay, bini aadanaa tahay. hadday tahay inaad carootid oo aad carootay cabir soo bixi. muhiimad waa in gudihii aadan ku cabirinin oo gudahaagii aadan buuxinin soo bixi. hadday tahay inaad qosashid qasal waxaa waaye samee. marka dareemaha marar badan waxaa saameynayo dadka nolosheena ku jiro soo ma qofaa kaa careysiinayo, qofaa ku dhibaateynayo, qofaa maxay ahayd qalbiga aad wax ugu haynaysaa. waxaasoo dhan anagayna dhibaateynaya dadkii. marka isbar horta inaad cafisid. cafinta haday dan kuu tahay laakiin qasab ma aha, waajibna ma aha inaad qofka wax kaa helay aad cafisid, laakiin haday dan kuu tahay. soo culeyskaas intaad saarnaa laheyd ama calooshaada ku hay laheyd oo wixii cudur kuu noqon lahaa iska saar. gudahaaga waxba ha ku heenin. qofkii ku dhibaatay asaa kaa liita, qofkii ku dulmiya asaa kaa liita, asaga kaa hooseeya. adiga mar walba waxaa tahay qof maasha allah tabaaraka allah qof wanaagsan aa tahay darteed ma inaa u sameynaysid inay dadka ku dhahaan, laakiin naftaada ayaa mudan inay noqoto qof wanaagsan inay ahaato oo aan cuqdad iyo ciil midnaba aan ku nooleen oo nolosheeda ay tahay caadi maasha allah tabaaraka allah. marka cudurada oo dhan waxaa waaye waxay ka imaadaan dareen asxaabay. dareenay ka imaadaan dadka qaar waxaa waaye tayroodka dareenuu ka imaadaa,
dadka qaar waxaa waaye waa arkaysaa hooyooyin markii ay caruurtooda ay ka dhintaan qaarkood waxay ku leedahay aniga markii wiilkayga iga geeriyooday hooyo ayaa waxay ku dhahdaa kor wiilkayga markuu iga geeriyooday naxdintii aan naxay maalintaas waxaa igu dambeysay inuu igu dhacdo dowradii periodkii inuu igu dhaco ayaa igu dambeysay ma igu dhicin. hooyo kaleenta waxay leedahay mar hadda ka hor gabadheed ay geeriyootay maalintii ay geeriyootay naxdintii aan naxay sokora igu soo booday. cudurada marka iyo dareenka biniaadanka waxaa waaye way isleeyihiin inkastoo ay jiraan dareemo naga awood badan oo aadan celin karin oo awoodeena ka baxsan, laakiin intii awoodeena maxaa la rabaa inaan nafteeni aan la dadaalno, inaan ogolaanin dareemaha gudaheena kasoo baxaa inaan ku celino, ay tahay inaan soo saarno oo banaanka u soo bixino. marka ha cabuurini naftaada, dareemaha kaa soo baxaayo banaanka u soo saar. naftaada muhiimadeeda waa inay nabad ku noolaataa. dadka qaar waxaa jira oo wax idinkala dhex maraayo, dadka qaar waxaa jira oo rabtid maxayd inaad isfahantaan, oo dadaa jiro aad dhihi rabtid. qofaa waxaa jirta oo mararka qaar cuqdad ku gelinayo adoo waxba ka haleenin goosanayo. dadka isku mid maahan. markaasaa dareen waxaa u qaadaysaa negative oo maanta oo dhan waxaa leedahay aniga qofkaan maxaan ka haleeyey, aniga qofkaan asaga maxaa waaye inaad wacdida kuu fiican aad tiraahid hebelow amba hebelaayo maxaa aniga aan ka haleeyey soo maxay yihiin haddii aad rabtid. haddii aadan dhihi karin soo maaha ay kugu adag tahay, way nagu adag tahay mararka qaar soo adoo og sabab inaanay jirin qof iska baxay. mararka qaar waxaa waaye qofka ma samayn karo soo ma ogid wax aa haleesay male ma ogid soo problemka asaga waay. markaasoo kale inuusan naftaada gudaheeda sii deganaanin ood fariisatid ood mala awaashid qofkii kuu joogo ood malaysatid oo tiraahid hebelaayo miyaa maxaan kaa haleeyey amba hebel miyaa maxaan kaa haleeyey amba adaa waxaas iga haleeyey. qof asaaba wax kaa haleeyey inaad tiraahid waxaasa iga haleesay, waxaasaan kaa tabanayaa, laakiin waxaa go-aan ku gaaray inaan iska kaa cafiyo ilaahay dartiis. qofkii asagoo maqan ayaa waxaa malaysanaysaa inuu kula joogo kaleente xaadir u kula yahay agtaada uu joogo oo weji ka weji aa isku arkaysiin. markaasaad leedahay heblaayo miyaa amba hebel miyaa waa ku cafiyey aada ii dhibaateysay. dad waxaa jira dadka dhibaateynayo sooma intay ku dhibaateeyaan haddana iska goosanayo haddana makaa filayn waxaas, laakiin waxaan go-aan ku gaaray inaadan gudaheyga aadan kusii noolaanin oo aan kaa saaro qalbigeyga iyo caloosheeda si dareenkaas negatifeka oo gudaheyga ka buuxa aanu aniga cudur igu noqonin. saas daraadeeda waa ku cafiyey inaad tiraahid oo aad malaysatid qofkii. marka dareemaha aan xambaarsannahay oo madooga inaan iska meerno wax qurux badan waay nafteena annagaa mas-uulka caafimaadkeena wuxuu ku jiraa qalbiga wanaagsan ayuu ku jiraa. qalbiga wanaagsan inuu ilaahay hiba ku siiyo waa sax, haddana wax diidaayo ma lahan inaad istaw bartid oo aad yeelatid qalbi wanaagsan, wax diidaayo ma lahan. annagoo dhan waxaa waaye maalina waxaan soo xambaarsanaan jirnay cuqdad, dadna soo xumeeyey cuqdadaan u hayn jirnay. maxay ahaatay aan dhihi jirnay see annaga saana lagu sameey, see annaga bini aadan aan nahay waana la dhibaateyn karaa. qofkana dhibaateynaayna bini aadan waaye soo asaa ismatal xumaantiisii asagay qosaysaa maaha in naftaadii aad usii ciqaabtid aad gudahaagii aad kusii haysatid. marka jooji dareemaha kaa soo baxaayo iska soo saar, ha ku celinin gudahaaga soo cuduray kugu noqonaya. marka cudurada oo dhan in badan waxaa waaye dareemahaas u badan weliba kan murugta waxyaaba u badan kan murugta waaye, kan naxdinta, dareenka carada, intaas waxay keenaan xanuunay keenaan. marka bini aadanaa tahay nolosha intaas socotid maxaa waaye safarka nolosha markii la maraayo waxaa imaanaya sooma maalmo madow, maalmo boor leh, maalmo waxaa imaanaya meel dheer ay tahay dhib inaad koraysid. marka maalmahaas oo dhan markay imaato isku day inaad hawo qaadatid ood hawo nadiif oxygen aad jiidid aad qaadatid, sanka aad ka qaadatid, afkan aad kasoo saartid gudahaagii aad tiraahid alxamdulilaah waa awoodaa inaan waxaas aan ka gudbo, waa awoodaa inaan meeshaan madow ama boorka leh aan ka gudbo. waayo waxaa ii muuqdo meel cagaar ah, waxaa ii muuqdo meel jaalo ah, meel cadaan ah oo aad u qurux badan, waxaa ii muuqdo biyo, waxaa ii muuqdo hareeraha kulli ay yihiin ubaxyo ii doog maasha allah tabaarak allah. marka meeshaasaa ii muuqato maha inaa meeshaan sii taagnaado, waa inaad u carartid meesha quruxda badneed. see uga cararee waa inaad gudahaagii aad ka bixisaa wixii adiga kugu jiray oo xumaan ahaa.
marka isku day inaadan qaadin dareemo murugo leh, inaadan qaadin dareemo diidme ah, inaad ogolaatid dadka oo dhan, aad ogolaatid nooca ay yihiin. Qof walba oo noloshaada ku jiro nooca uu yahay waa inaad ogolaatid. haddii adiga ilaahay kaa dhigo qof wanaagsan, maasha allah tabaaraka allah, macnaheeda maaha oo inay wanaagsanaanayaan. marka waa inaad ogolaatid kala duwanaantaas, waa inaanay kuu keenin kala duwanaantaas dareen negative ah, oo aadan xambaarin, oo aadan gudahaagii aadan ku buuxinin waxyaabo adiga beri ku keenayo cuduro ku keenayo. marka annaga oo dhan waxaan rabnaa in nolosheena inta ka dhiman inaan caafimaad ku noolaano. caafimaadkan ilaahayaa bixiyso ma, laakiin dadaalkii waxaa waaye waajibaana la saaray. dadaalkii annaga waxaa waaye inaan ku dadaalo nafteena, hadday ahaan lahayd dhinaca cuntada, hadday ahaan lahayd dharkii, hadday ahaan lahayd nadaafadii guud, hadday ahaan lahayd dareenkiina waa inaan ka dhignaa qayb muhiim ah oo anaga bulshadeena muhiim uma arkaan. qayb muhiim ah waa dareenka qayb muhiim ah waa inaan joojino naceebka qalbiyada ka buuxa, inaan joojino. aan qofka ku naceeno qabiil hebel uu yahay dartiis, waxyaabaa cajiib kale kamid tahay annaga aan iskula yaabno. qofka waxaa lagu nacayaa qabiil hebel waay keliya, wax kuuma dhiman, wax kaama haleenin, bes qabiil hebel waa. markaasaa qofkii colaadineynaa. maxaasoo kaleent waxaa wax foolxumo wax liita waa, weliba oo aada u hooseeya waa caqliyan. markii la dhaho qofka inaad nacdidaa borto xun, naceeb inaad qalbigaaga aad gelisid ayaa waxay tahay wax weyn oo aada u weyn ay tahay. soo naceebku wax sahlan maa. qofka fikradiisa inaanad ka helin, dhaqamadiisa inaad ka helin, laakiin inaad asaga shaqsiyan ilaahay wuxuu qalqay hanicin. ilaahay wuxuu qalqay oo dhan qurux waay. waana ku mahadsan tahay daawashadaada iyo waqtigaaga qaaliga aad siisay video xig intaan kulmi doono. waxaa idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. jaaw.